horta markaad tahay ciyaartooy qiimo leh mase markaad tahay ciyaartooy laacib ah waxaa wanaagsan sempre inaad ahaato qof iska fikira qof is ilaaliya waayo saxaafadda waxay u joogaan qofka bini'aadanka ah fadeexadiisa. Paul Pogba waa ognahay waa ciyaartooy aad qiimo u leh u dhashay qaranka Faransiiska la qaaday koob adduun la qaaday wuxuuna soo maray laba team kooxda Manchester United iyo kooxda Juventus. Pogba waa ciyaartooy la isdhihi karo waa ciyaartooy aad qiimo u leh laakiin waxaa ku dhacday qiso uu isagu fiilaynin. Run ahaantii ninka ragga adduunyada korkeeda intuu joogo wax walba oo la kulmaa war ilmaha ka qabta basan la kulmeenin. Marka Paul Pogba waxaan leeyahay horta cashir intaas kugu filan waliba ciyaartooyda kale oo mustaqbal kale sida adigoo kale ayagana cashir intaana ugu filan waayo Pogba hadar cid isdheeysa ma jirto ganaaxan ku dhacay racfaan ayuu ka qaadanaa laakiin Pogba waa nin caan ah waa nin ciyaartooy ah waa nin magac leh racfaan ayuu ka qaatay 8 bilood kadib Paul Pogba hadar wuu soo laabtay waxaana la wareegtay kooxda AS Monaco. Pogba run ahaantii waxyaalo badan ayuu ku waayay ganaaxan mase maxkamadda ay FIFA saartay run ahaantii jaceelkiisii mase qoftu adduunka ka jeclaa Pogba saas ayuu kala dhaqaaqeen asxaabtu saaxiibahay ahaayeen Paul Pogba halkaas ayuu ku waayay waayo qofka markuu ganaax nooca fuulo dhaqaalihii soo gali jiray mase mishaaraadkii mase hoolihii macnaadii asagu isticmaali jiray markay qofka ka go'an wixii asxaab way jiraysaa. Dumarka qaarna waxaan leeyahay ma ahan dad aad u sawir badan ma ahan run ahaantii qofka waxay ku raacaan khidmadda mar haddii khidmadda ka go'dane wabillahi tawfiiqna kala wadwa. Marka ciyaartooyga Pogba runtii kubadda ninkii daawada Pogba waxaan isleeyahay waa ciyaartooy meel walba ka dhisan waa ciyaartooy gambis leh waa ciyaartooy xirfad leh waa ciyaartooy dhalanayo waa ciyaartooy run ahaantii dhan walba ka habaysan. Marka Pogba waxaan ku leenahay nasiib wacan AS Monaco soo dhawaaw run ahaantii muddo badan ayaad kubadda ka maqneed wadna dareentay dhibaatada ay leedahay kaniiniga mase daroogada dhibaatada ay leedahay wad aragtay waxaan ku leenahay Pogba hore u soco waxyaalahan qaar hadar Pogba lagu sameeyo kale Soomaalidu way ka dhacdaa laakiin ninkan waxa lagu helay daroogo ani waxaan isdhahay waa cuzuriyad laakiin cuzuriyad ma ahan oo hadar qaabka Soomaaliya ka dhacdo oo ciyaartooy badan oo qaranka u dheeshay mas ciyaartooy badan oo jecel hadar inay qaranka Soomaaliya u dheelaan lagu dhaqmo ayaa jirta oo beelaha laga tirad badan yahay ka dhashay. Marka horta runtii Paul Pogba hadar wuxuu si gabana mase laaga si laacana ma taqaana waa ciyaartooy magac leh waliba qaran weyn ka soo jeedo koob adduun qaaday kisto intaas iyo shaashadaha caalamka run ahaantii